Dhawi midnimo iyo isfahan ayuu ku soo ilaalay shirka wada tashiga doorashooyinka iyo dhamaystirka heshiisyadii Samareeb 1 ilaa iyo Samareeb 3 kaasi oo afartii maalin ee la soo dhaafay madaxtooyada qaranka uga socday madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirkan oo muddadii uu socdaba uu gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu lafaguray hanaanka doorashooyinka ee dalka iyo heshiisyadii hore madaxdu ugu wada gaartay magaalada Samareeb ee xarunta maamulka Galmudug bayaan ay si wada jira u soo saareen madaxda kulanka ka qayb gashay ayaa lagu sheegay in deegaan doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka laga asteeyo laba magaalo oo ah caasimadaha gobolada uu dawlad goboleedku ka dhisan yahay in tirada ergada xildhibaan walba u codeynaysa noqoto 101 ergey iyo in xulista ergada ay iska kaashadaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dawlad goboleedyada sidoo kale mid ka mid ah qodobada heshiiska ayaa dhigaya in dhammaanba qodobada la isla gartay la horgeeyo baarlamaanka dalka si ay u meel mariyaan Cabdirashiid Maxamed Xaashi kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka ahna agaasima ku-xigeenka ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedka shirkan ka soo baxay qodobka koowaad in dawladda federaalka ah ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dawlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah ee dawladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dawlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codeynaya ay noqdaan 101 ergo oo metelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dawlad goboleedka in qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dawlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo 1 November 2020 in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan madaxdu waxay adkeynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas'uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dawladda Galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1 Samareeb 2 iyo Samareeb 3 sidoo kalena waxa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dawlad goboleedyada iyo wufuudi ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyay muddadii wada hadalladu socdeen isagoo xoogga saaray in wada jir iyo wada ogol lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka